kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii warbaahinta wadaagsan production oo aad alaaba halkan ka daawan jirteen waa 15 November 2019 qodobada ugu doorka roon ee warkeena maantayna waxaa kamid ah maamulka Jubbaland oo weerar ku qaaday Itoobiya shaaciyayna qorshe la wado in dawladda Jubbaland lagu afgambiyo wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Boosaaso iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo qaadaya talaabo xaaladda sii xumeyn karta wasiir Cawad oo sharaxay kulankii dawladda federaalka Soomaaliya iyo Kenya dhexmaray una jawaabay hadalkii ka soo yeeray Monica Juma xildhibaan Mahad Salaad oo sheegay in madaxweyne Farmaajo uu hor yimaado shacabka Fahad Yaasiin iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kulmay madaxweyne Farmaajo oo sheegay in kiiskii bacd dacwadda ICJ uusan saameyn ku yeelan doonin xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya ayna ka wada hadleen sidii Kenya iyo Soomaaliya xiriirkooda u dib ugu soo noqon lahaa daawadayaal intaasina waa qodobada ugu doorka roon ee warkeena maantay haatan ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan fadlan daawada waxa xasuusiniga inaadan hilmaamin subscribe gambaleel kana furatid si aad markaasi uga mid noqotid daawadayaasha ugu horeeya ee hela wararkeena haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan shirkii golaha wasiirada Jubbaland ee shalay ayaa intiisa badan diiradda lagu saaray xaaladaha siyaasadeed ee ka jira deegaanada Jubbaland sida khilaafka kala dhaxeeya dawladda federaalka iyo dhaqdhaqaaqyada ay dawladda dhexe ka wado gobolada Gado gaar ahaan degmooyinka Luuq Doolow Garbaar iyo deegaano kale madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo shirka kadib madaxtooyada Jubbaland warbaahinta kula hadlay ayaa ka madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo shirka kadib madaxtooyada Jubbaland warbaahinta kula hadlay ayaa ka digay faragelinta ay dawladda dhexe ka wado gobolka Gado isagoo sheegay in dawladda dhexe ay burinto madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo shirka kadib madaxtooyada Jubbaland warbaahinta kula hadlay ayaa ka digay faragelinta ay dawladda Soomaaliya ka wado gobolka Gado isagoo sheegay in dawladda dhexe ay burburin doonto maamulka Jubbaland uu adeegsanayso ciidamada dawladda Itoobiya waxa uu yiri goluhu waxay si guud walaac uga muujiyeen xaaladaha faragelineed ee lagu hayo dawlad goboleedka Jubbaland kuwaasi oo ka imaanaya dawladda federaalka iyo dawladda taageero oo si khaldan awoodooda lagu adeegsanayo waxa shirka golaha diiradda lagu saaray xaaladaha ka soo cusboonaaday gobolka Gado ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland isagoo si hadlaya ayuu yiri waxa la yaab leh in saraakiil ka tirsan nabadgelyada Soomaaliya oo adeegsanaya saraakiil ka socota dawladda Andariska nahay ee Itoobiya inay ku mashquulsan yihiin sidii loo burburin lahaa ciidanka Jubbaland ee ka howlgala gobolka Gado si loo wiiqo maamulka ay ku heshiiyeen dadka deegaankan iyagoo adeegsanaya awood iyo siyaasad guracan sidoo kalena waxa la yaab nagu noqotay toddobaadkii la soo dhaafay markii maamulada Jubbaland uga howlgalaya degmooyinka Luuq Doolow iyo Balad Xaawo sharci darro ashir lagu geeyay gudaha Itoobiya halkaas oo ay kula kulmeen saraakiil ka socotay dawladda federaalka kuwaasi oo ku qasbay wax sharciga dalka ka baxsan oo ah in ciidamada Jubbaland ee iyaga hoostaga ay ku wareejiyaan dawladda dhexe si loogu soo daayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ugu dambeyntiina Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa yiri waxa la yaab leh in xukuumadda maanta jirta ay ku mashquulsan tahay campaign ugu jirto in dadka Soomaaliyeed ay doortay u adeegsato ciidamo shisheeye oo ay ku bixinayaan dhaqaale iyo waqtiba taasna wax aan qaadan karno ma ahan haatan magaalada Boosaaso xaaladda magaalada Boosaaso ayaa shalay ilaa saaka degan kadib markii Arbacadii ay ciidamo ka tirsan daraawiishta Puntland iyo ciidamada beeleed wada socday ay si xoog ah gudaha ugu galeen magaalada wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in maamulka Puntland ay ciidamo iyo teknika fara badan ku daabulayaan gudaha magaalada Boosaaso waxaana jira taxadar badan oo dadweynuhu ka muujinayaan dagaal dhaca ila wareedyo ku sugan magaalada ayaa wadaagsan production u sheegay in go'aanka xukuumadda Saciid Deni ay ciidamo dheeri ah ugu soo daabulayso magaalada uu horseedi karo dagaal dib u qarxa dagaalkii Arbacadii ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa ahaa mid la saadaalinayay maalmahan oo dhan sabab la xiriira talaabada ay qaaday xukuumadda Deni oo ay kula wareegayso shirkadda BDG waa shirkad ilaa muddo dheer soo shaqeynaysay waxa la ganacsato reer bari ah ugu tuweyn ninka ka dambeeya abaabulka ciidamada soo galay Boosaaso oo lagu yeero Bashiir Cabdullaahi Saalax Deer shirkadda ayaa ciidamada BMF ta Imaaraad ku taageerto u qaabilsan yihiin wixii logistic ah halkaas oo ay macaash fiican ganacsatadaasi ugu jirtay goor inta aysan isku dhicin saaxiibadii markii hore ku shirkoobay dhinaca kalena waxa magaalada ka socda olole nabadeed oo ay wadaan culimada iyo waxgaradka kale ee ku dhaqan si xal looga gaaro xiisadda culimada isimada iyo nabadoonnada gobolka Bari ayaa sheegay inay wadaan dadaal nabadeed oo ay doonayaan in xal laga gaaro wax walba oo nabadgelyada xumo keeni kara wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa faahfaahin ka bixiyay
kulankii ay maanta magaalada Nairobi ku yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta cawad oo wareysi siiyay VOA ayaa ku adkaystay in la isku raacay in labada dal ay xiriir wanaag yeeshaan oo kiiskii maxkamadda ICJ uusan wax saameyn ah ku yeelan xiriirkooda. kiiskii badda wuxuu jirayaa maxkamadda ICJ madaxweynaheenuna si cad ayuu u sheegay waxaana lagu heshiiyay in xiriirka labada dal la soo celiyo iyadoo arrinta baddana aysan saameyn ayuu yiri. cawad oo wax laga weydiiyay hadalka wasiirka arrimaha dibadda Kenya ee in Farmaajo ogolaaday in kiiska ICJ laga gaaro xal ay ku wada qanci karaan labada dal ayaa sheegay inay taasi jirin. anigu waxaan ahay dhiga wasiirka arrimaha dibadda Kenya marka waxa isweydiin mudan maxay Soomaalidu u rumaysanayaan hadalka wasiirka Kenya oo aysan u rumaysanayn wasiirkooda ayuu yiri. xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay kulankii dhexmaray madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya. qoraal uu Mahad Salaad soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku yiri madaxweyne Farmaajo cid ka akhrisanaysa inuu dhunta ma jirto inta ummadda ka hor yimaado ha u sheego waxa uu Kenya kula heshiiyay. war-saxaafadeedka galabta ka soo kala baxay madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha Kenya waxaa lagu sheegay in labada madaxweyne Soomaaliya iyo Kenya Farmaajo iyo Uhuru ku heshiiyeen arrinta dacwadda badda ee taalla ICJ lagu xalliyo hab labada dhinac wada ogol yihiin taasoo micnaheedu yahay in dacwadda badda la soo celiyo kadibna wada hadal lagu xalliyo. haddaba waan aragnay mowqifka rasmiga ee dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Farmaajo inuu ummadda hor yimaado runtana ka sheego waxa dowladda Kenya uu kula heshiiyay. arrintani waa arrin masiiri ah oo qarannimada Soomaaliya taabanaysa mana jirto cid ka akhrisanaysa madaxweynaha inta qolkiisa hoosta ka xirta in aamusnaan iyo dhuumasho uu ummadda ku siro. gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo taliyaha hay'adda Nisa Fahad Yaasiin ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho sida ila wareedyo lagu kalsoon yihiin u xaqiijiyeen wadaagsan production. sida aan xogta ku helnayna kulankan ayaa ka dhacay hoyga uu xamar ka degan yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo taliyaha Nisa ugu tagay waxaana uu soo dhamaaday abaara labadii subaxnimo ee Jimcaha maanta. sida aan xogta ku helnayna waxaa kulankan looga hadlay xiisadii dhawaanahan ka dhex taagnay dowladda iyo Shariifka taasi oo xoogaystay toddobaadkan markii madaxweynihii hore lagu xanibay garoonka Muqdisho isagoo ku sii jeeda magaalada Beledweyne. xubno xogogaal ah kulankan ayaa ku qaxay mid xaalad qaboojin oo lagu daminayay xiisada xalan looga gaarayay wixii dhacay. waxaa la isku soo qaaday in xal laga gaaro waxyaabihii dhacay isla markaana la xaqiijiyo inaysan dib u dhicin. wararka aan kulankan ka helnay ayaa sheegaya inuu ku soo dhamaado isfaham la iskuna afgarto inay dhacaan kulamo kale oo dheeri ah oo lagu xaqiijinayo in xaaladan si buuxda looga gudbo. ugu dambeynna madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Kenya isku raaceen inay dib u soo celiyaan xiriirkooda aysan oo kiiska maxkamadda ICJ ee badda uusan taasi wax saameyn ah ku yeelan. madaxweynaha ayaa hadalka ka sheegay shir jiraayad oo si wada jir u qabteen isaga iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta kadib wada hadal ay ku yeesheen magaalada Nairobi. madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan waxyaabo badan oo ay ka wada shaqeyn karaan isla markaana aysan ahayn in khilaafka dhanka badda uu hor istaago arrimo badan oo dan ugu wada jiro labada dal. waa inaan wada qaadano waxyaabaha guud ee ay ka siman yihiin intii aynu dadkan qaadan lahaayeen kala duwanaanshaha waana sababta aan u hubo in arrinta maxkamadda ICJ inayna saameyn ku yeelan xiriirka labada geesoodka ee labada dhinac. hadalka madaxweynaha ayaa beenin ah war ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda Kenya Manuka Chuma oo qoraal oo soo dhigtay bartada Twitter-ka kadib kulanka ku sheegtay in Farmaajo uu Kenya u muujay inuu ku kalsoon yahay in kiiska maxkamadda ICJ ee ka dhaxeeya labada dal lagu xallin doono hab ay labadaba dal ku wada qanaac karaan. mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo la hadlay wadaagsan production ayaa sheegay inaysan la yaabeen in Manuka Chuma ay qolocisay xaqiiqada kulanka sababtoo ah ay horay marar badan sidaan oo kale u sameysay. Manuka Chuma dadka qoraalkeeda ku socda oo kala hadlaysa waa shacabka Kenya waxayna isku dayaysaa inay shacabka Kenya caawa ku seexiso inay niyad wanaag marka waxay gudanaysaa shaqadeeda. waxaa sidaa yiri sargaal ka tirsan Villa Soomaaliya oo la hadlay wadaagsan production. dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sidoo kale xaqiijiyay in kiiska maxkamadda ICJ uusan wax saameyn ku lahayn soo celinta xiriirka labada dal iyo qodobadii lagu heshiiyay maanta. wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay rumaystaan dowladooda oo aysan rumaysan Kenya. anigu waxaan ahay dhiga wasiirka arrimaha dibadda Kenya marka waxa isweydiin mudan maxay Soomaalidu u rumaysanayaan hadalka wasiirka arrimaha dibadda Kenya oo aysan u rumaysanayn wasiir Cawad hadalkiisa. dowladda Soomaaliya ayaa marar badan horay u sheegtay inaysan marnaba wada hadal ka gali doonin kiiska badda ayna ku qanacsan tahay in lagu kala baxo maxkamadda caalamiga cadaaladda adduunka ee ICJ. dhageysiga dacwadda oo horay dib loogu dhagay 2 goor ayaa hadal la waqtiyay bisha June ee 2020 maxkamaddan ay sheegtay inaan mar dambe dib loo dhigi doonin. daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena maanta oo aad si toos ah ugala socoteen boggeena Facebook iyo YouTube ee wadaagsan production. inta aan warkan mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxay idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.